waxaa maantay sharaf noo ah guul noo ah inaan idinkala soo qayb galno munaasabaddan xarig jarka ah ee la xarig jarayo dugsiga sare ee Gubadley halkan oo aan dhagax dhignay muddo hadda 2 sano ku dhow ka hor sharafay noo tahay maantay iskuulkii oo dhammaystiran ardadiisii iyo maamulkiisii iyo macallimiintiisii ay joogaan inaan xarig jarno sanad ka hor ayay ahayd markii iskuul horey loo dhammaystiray oo hoose dhexe ah aan xarig jarnay sidaan oo kale sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanku qaar badan oo ka mid ah da'yarta reer Gubadley ayaa iskuullada degmooyinka kale waxbarasho u aadi jiray baahidaas si looga baxo dadka danyarta ahna loogu soo dhoweeyo waxbarashada ayaa dadaal dheer maamulka iyo bulshada oo iskaashanaya ayay u galeen sidii loogu heli lahaa dugsi hoose dhexe isla markaas loo heli lahaa dugsi sare oo ah midka maantay aan xarig jarayn bulshada iyo maamulka reer Gubadley dadaal badan oo ay sameeyeen ayay runtii ugu suura gashay wax badan oo degguud ah inay qabsadaan hase yeeshee intaasi kuma filla oo ka badan ayaa laga rabaa goobaha danta guud ee aad gacmihiinna iyo jeebabkiinna aad ku dhisateen kuwa la mid ah oo weli baahidoodu taagan tahay ayaa ka jira degmada Gubadley marka ayaa leys dhigan dadaalkiina sii wada waxa kale oo aan rabaa inaan idin xasuusiyo degmada Gubadley waa degmo dhacda xeeb deegaanada xeebta dhaca waxay u nugul yihiin dhismooyinka laga dhisaaho inay si sahlan ku daxlaystaan oo daxashaasi ay baabi'iso infrastructure-kii ama adeegyadii la dhisay sidaa darteed maamulka iyo bulshada oo isku duuban waxaa looga baahan yahay inay si buuxda u dayactiraan oo ay gacanta ku hayaan oo daryeel joogtaa lagu sameeyo goobaha danta guud ee la dhisay maxaa yeelay dhismahaas dadaalka badan loo galay ayaa si sahlan ku baabi'i kara haddii aan lagu dadaalin dayactirka iyo gacan ku hayntaba bulshada ku nool deegaankan ee baahida weyn u qabtay inay helaan goob waxbarasho farxaday u tahay innagana farxad iyo sharaf ayay noo tahay inaan maantay dugsi sare halkan ka xarig jarno waxaan rajaynayaa maantay wixii laga bilaabo iskuulka waa furan yahay way bilaabmaysaa waxbarashadiisu waxbarasho aan lacag ahayn oo bulshada reer Gubadley da'yartoodu ay ka faa'iideysan doonaan ayaa halkan uga bilaabmi doona haddii aan leedmo taasoo ah mid ka mid ah dadaaladii maamulka gobolka Banaadir oo waday oo ku saabsanay dhinaca waxbarashada iyo in da'yarta Soomaaliyeed
ee danta yar ay helaan waxbarasho bilaash ah fursadaha laydin siiyey fursadahaas maanta aad haysataan da'yartiinna hadda meesha jooga iyo kuwa kale ee aan fursadda u helin inay halkaa yimaadaan waxaa laydinka rabaa inaan la khasaarin oo ka faa'iidaysiga ay mudan tahay laga faa'iidaysto waxaan isku ognahay arday Soomaaliyeed ee leh tayo waxbarasho aqoon leh inay soo saarto halkan iyo iskuulka kale ee hoose dhexe ee iyadana ay leedahay degmada Gubadley marka hoose dhexe uu ka soo qalin jabiyo ardaygu si fudud ay u soo aadayaa dugsiga sare labaduba waa u dhow yihiin marka fursadahaas degmooyin badan aan haysan oo da'ahan ka horreeyay Gubadley marka inaad ka faa'iidaysataan oo fursadaas aan la dhuminaa laydinka rabaa maamulka Gubadley bulshada Gubadley iyo dhammaan mas'uuliyiinta nagala soo qayb gala munaasabadaana waan uga mahad celinayaa ka soo qaybgalkooda reer Gubadleyna dadaalkooda waan uga mahad celinayaa iyo sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen dadaalkiina si laaba bulsho iskaashatay ayaa xaqiijisa horumarku waa arrin nolosha bini'aadamku ay ku xiran tahay isla markaas furaheedu uu yahay aqoontu marka aqoonta iyo tacliinta ha lagu dadaalo si horumar loo gaaro oo loo hormariyo jeelasha hadda jooga iyo kuwa dhalan doona wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu